sharci la'aan bal dadkaaga wuxuu sheeg shinni baan samee malab idimaad shaqaynine waxay tiri shidaa timid dhirtii aan ka shubi jiray dhuxul baaba laga shidaay bal dadkaaga wuxuu sheeg shinni baan samee malab idimaad shaqaynine waxay tiri shidaa timid dhirtii aan ka shubi jiray dhuxul baaba laga shidaay bal dadkaaga wuxuu sheeg shimbir duulay baa yidhi dhirta aad shafaysaan haddan shirista laga dayn shaki male waxaa dhici shalay iyo nabaad guur shimbiruhu ka yaacaan xooluhuna shufbay noqon haddaynaan shir ma u xiran bal dadkaaga wuxuu sheeg shimbir duulay baa yidhi dhirta aad shafaysaan haddan shirista laga dayn shaki male waxaa iman shalay iyo nabaad guur shimbiruhu ka yaacaan xooluhuna shufbay noqon haddaynaan shir ma u xiran bal dadkaaga wuxuu sheeg anna maan shareerine shaacaan ka qaado maqashiyay shacabkee anna maan shareerine shaacaan ka qaado maqashiyay shacabkee waxu sheega ummado u sharaxa dadweyna si ay sharafta qarannimo uga wada shaqeeyaan sharcigana u dhowraan waxu sheega ummado u sharaxa dadweyna si ay sharafta qarannimo uga wada shaqeeyaan sharcigana u dhowraan dhirtayaan la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer dhulka wou shacniya qurux waana shay la'aantii noloshu waa shaqaynine dhirtayaan la shidin lahaa xarunta waxbarashada nabadda iyo horumarinta gaalkacyo waxay dadweynaha ku nool gaalkacyo iyo nawaaxigeeda ugu baaqaysaa una sheegaysaa in ay gacanta ku hayso dib u soo nooleynta iyo isticmaalka qalabka hidaha iyo dhaqanka ee ka samaysan agabka ka baxa amba dhirta ka baxda deegaankeena Soomaalida ee ay ka mid yihiin cawda cawska mayraxda xaskusha qabada iyo waxyaabaha la midka ah GCPD ayaa barnaamijkan ka lahayd laba ujeedo oo qoto dheer oo kala ah kan koowaad daryeelka deegaanka iyo kor u qaadida caafimaadka bulshada iyo la dagaalanka qalabka ka samaysan caaga ee sida ballaaran looga isticmaalo bulshadeena kaas oo dhammaan lagu bedelay agabka horteena ka muuqda oo hore loo isticmaali jiray haddana boosaskooda waa sabab camimay oo la isticmaalo dhibaatadiisa iyo waxyeeleyntiisa naf iyo maalna awoodtiin dhanka kale ayaa ujeedadu ahayd awoodsiinta iyo shaqo abuurka haweenka iyo gabdhaha iyo weliba kuwa xirfadlayaasha ah ee deegaanka iyo in la tababaro gabdho yaryar si dhaqanka uu noqdo mid jira oo aan lumin
waxaanu leenahay bulshada badbaadi deegaankaaga dadkaaga dunyadaada oo isticmaal qalabka ka samaysan cawda iyo cawska sida xaskusha kuwaas oo caafimaad iyo quruxba iyagaa noogu filan caafimaad iyo quruxba haddaan wada isticmaalno waxaanu ku haynaa oo aanu maanta hortaadii aan la doonaynaa inaan lacag raqiisa kaa siino dambiil darin xaaqin masaf babis alool rarada aqalada soomaaliga iyo boorsooyinka gabdhuhu isku sharaxaan sidoo kale waxaa dheer agabkan oo muxuuha runtii haaf iyo haaf ah nus iyo nus macnaa nusna waxyaabaha deegaankeena ka baxaaya nusna ay uus ahayn hase ahaatee noo dhaama muxuu ahaa tayadiisa iyo caafimaadkiisaba kuwaanu isticmaalno oo la isticmaali karo ganacsatada waxaanu leenahay abuura shaqo muxuu ahaa nafac u leh deegaankeena daryeelaysa badbaadinaysa waxtarka deegaankeena sida in aad keentaan muxuu ahaa wax aan waxba u dhimaynin dalkeena lacagta aad ku bixisaan dibadda ee aad ku doontaan bacda iyo jaqafka iyo jiritaanka iyo kuwa dhulka dhibaateeya fadlan joojiya aanu ku soo iibino agabka dalkeena beledweyne iyo bugarow aanu ka soo gurnaado kuwaanaan meesha hortiina yaalla aanu ka soo iibinay waxaanu ka samaynay kan wuxuu bedelayaa bacdi wuxuu bedelayaa labaatani wuxuu bedelayaa xasiiki wuxuu bedelayaa maxaa bacdi guriga la saaraayo iyo bacdi hoogayo bay la dhahay fadlan ganacsatadu ha ogaato waxtarkiina waa u baahannahay waxkeenkiina waa u baahannahay horumarintiina waa u baahannahay laakiinse xoogaaga yar ee naga khaldan aanu saxno u ogolow lacagta aad dibadda u diraysa inaad ku maalgelisid kuwa waalidiintaada iyo walaalahaaga shaqo la-aanta oo guryaha fadhiya kuwa caadaystay waxay ka shaqaystaan markii waayeen inay qashinka guraan kuwa caadaystay xaaba ay dhabarka kusoo gureen inay cunto ka raadiyaan u ogolow inay dambiisha laabto babiska samayso xaaqinka xirto nafac ay ka raadsato kuna sharfanaato shaqadaa gurigeeda ku qabato barbaarisa ubadkii uusan dhagax tuuro noqonin iyaduna ay ku noolaato waa hooyadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu oo caanahaas waa dhay oo hadda saacad ka hor baan ku soo shuba caanaha laga gataa aniga ma laga gataa caanaha waa rifaaca maqaaxiyado adiga iyo caagadaas midna wax laga gadan mar hadii dhir cun la helayo ma garata marka meesha ka tagina wax ka sameysay war hadda diidan hadda gadanaya hadda diidan wadaayalkadi maanta ka casriyey caagani sumbu noqday gabadhan asaaga fiiri ilaahay baa kugu daarshay isheeday wadataa dhirteeday ku culataa caanahaas la wareegtaa casrigii waa laga soo laabtay dib baa loo laabtay dib idihii dhirteena iyo aabayaasheen baa loo laabtay waxa raar mariiman hogaha lagu dheehay dadkii ay u dhirteen iyo dhirteenaas la abuuray intaad aayar dhufsatid nacaagaan iska tuur cudur buu keenay caruurtii buu laayay cilad buu abuuray casriyay ka waanto casriyay ana bacuuna wuu ku diraa ciidana ka garan maysa kala tag meesha ويا والله ليش قاعدنا يا مر ما لقى قدنا يا ليش قاعدتوا والله قاعد قدنا لكن انت عاقد كود والله لبا عانتي لغا سيسنين كم انا لا دوين هذا لبكم يتراهي كم انا لو دهين اسكت عد كا ايسنس ما gabadhan deecaani u dhamaade isku mar baa yani ka waxa laga qabtaa waxa soo cagada ugu shubaysan والله انا كوين wanaagsan aduu laakiin wax kala tahay warqaad ina wanaagsan baa tahay walaal waa tuuraya caanaha والله انت نو waa inaad caaga iska dhigtid aye والله انت waa tuuris anagu aan lahayn bacday wada cunaan caan laga ma dhigto cudur bayna keenay dhamaantood gurigayaan hadda waxaan isii kiilo bur iyo kiilo sokor oo ina meegaag aan deen uga soo qaaday bacdan ugu jiro oo cidii baan u wada walaalay musiibo waxaan ugu noqotay bac adigina bacdii buu ilmihi bacdii waxaan calooshay wada jifta cudur bay la caatoobeen dhulka iska wayaan kulligood inaad hadda araaba ahayo degdeg baan ahayn assalaamu calaykum maxaa sheega war waa dardar iyo cubtaan الله قرماي قدام بيسي تعبتن وري ورد دراعدي أري مطابطو دراعدي كوريسي بايقو كادم الله عبر باينا بطا وردرد ورهاية ورهاية
الله ينور البلاد من عطني أصلا بقى هوجا وبقى اللي يراهو وحكوا قاطع بحايل بعدنا وعدونا بنعلن التانية عنا أي حالة مننا ما بدبادن بعد الدوغة ضعفها كدورة هذا ميشن ما أنت الديجان كأواكل عبرين نولي وما تمربي كنت هاكسين وكنت غير قصح ديري على نرجع قرعتها شبت كاس وسكية حرتش وسكية دا سودا فينا ولا سكولي وانا جا حتى ماشي إني صور ما يسوي جيده إني قرع إني بيعني يدرتني قصد إني أكو صور ما يسوي بحلي يا بحاجة أجملسين نورك ما أنا قاعد أقول ساعة والله بعد شروق السين لبدا شروق أنا صارين ورمغة ورجحان وجه إلهي جد مياه أنا كبحي وانا ترى شيحاس قاد كابانا سيسا وحي جد شيحاس كيالي شيحان أصعدا شيحا كيالانا تريا انتو قاد شيح قادنا ميزك إيساليا جوك سلميو إنك لا كحيل waxaan inii sheegayaa hawshaas waa la gelayaa gartana waa la naqayaa dibna ma dhici doonto bal wax yar ila dhagaysta gabdhahan dibnahooda dabuubta ku duugan dhirteena mogoosho darabixisay siidaan qabowguna ku maran yahay caleen midabyo badan iyo ubax lagu mariigiyo udug lagama waayo dhirteena muhiim u ah abba maanku sidoo rabo geedo hoos macaano martida u hilowdo maalkuna harsada lih kuwa miro dhanaaniyo macaan laga helaayo dadkuna muusanayaan ma weelo badan lihin meelaxda laga dilaacshay gabdhaheenu miiqaan gabdhaha lagu mariimaa aqal laga magooga oo misana kuwaas lihin midda kale waxay tahay misagada ninkii cunaa mooyu u goosta iyo miiga lagu rogo dhirteena magoolkiyo midabyada qurxoon iyo laga helo macaanka naacoonka laga qoro maangaabka jarayow xas meel ka yimidow inshaata u afaystow kuma mooga shacabkii badan oo karaamada badan oo isu keenay oo tixgelinta iyo muxuu ahay taqaayigelinta iyo baraarujinta iyo si walba inoogu muuqda waxaan taageeraynaa macfalka qiimaha badan lama samayn karo lama qaban karo laguma dayan karo wax la gaari karana maaha macfalka qiimaha badan hidaheeni iyo dhaqankeeni baa banaanka loo soo dhigay waa layna baraarujiyey qof waliba meeshiisa inuu kaga dhaqmo oo ku talagalo oo qabto oo ka shaqeeyo yaynu heegan u nahay waxaynu diyaar u nahay wixii hore hidaheeni iyo dhaqankeeni ahaa hooyadeen iyo aabaheen kusoo dhaqmi jireen inaynu ku dhaqanno aad baan u taageerayaa karsanayay gaasku sidiisoo faa'iidooyin tiro badan baa loogu talagalay inay bulshada uga faa'iidaysato oo isugu jira dhinaca caafimaadka dhinaca deegaanka iyo dhirta dhinaca hawl fududeynta iyo shaqada ku saabsan maaragtay chickenka iyo cunto karinta hawlahaas oo dhan in gaaska looga faa'iidaysto meeshii loo isticmaali jiray dhirta inta la soo gubo in dhuxul la isticmaalo shirkadda Sahal Gas waxay kharash tiro badan iyo waqti tiro badan iyo fakar tiro badan intaba gelisay inay beddelkii dhirta la jarayay oo xaabada laga dhigayay oo dhuxusha laga dhigayay oo aan haddana wax anfac lahayn oo cudurradu ka imaanayeen oo xaafadaha iyo hooyooyinku ku dhibaataysnaayeen oo dhuxushu aysan laftigooda nadaafad darro iyo cudurro keenaysa iyo qiica intuba beddelkeedii in la helo wax ka fudud oo adduunka oo dhan lagaga dhaqmo oo adduunka oo dhan ma jidho Soomaaliya ma ahna meel dhirta inta salka laga jaro xaaba ahaan loo shito dhirtu caalamku waxay ugu fadhidaa qiimo aad u tiro badan oo dhinac walba taabanaya maxaa jira waxa ku xiran nolosha bini aadamka oo dhan iyo nolosha xayawaanka oo dhan baa ku xiran iyo nolosha dhulka intaba dhirta ku xiran tahay haddaanay meeshu dhir lahayn roob kama da'o caafimaad male hoos male udgoon male cuntooyin wanaagsan oo ka soo baxa male caana male xoolaha dhir faa'iido badan uga faa'iideysan karaan saas daraadeed shirkadda Sahal Gas waxay energy aad u tiro badan gelisay inay keento gaas looga kaaftoomo isticmaalkii dhirta
waxaanu keennay haamahan aad u jeedaan oo ah 3 nooc haan ah 6 kiilo iyo haan ah 13 kiilo iyo haan ah 20 kiilo qof walba wixii uu awoodiisu tahay inuu gato dhammaan waxaan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha munaasabadan qiimaha badan leh maanta isugu jidha munaasabadaha qiimaha faraha badan taasoo maalin la soo gabagabeynayo maalintii 8 bisha bandhigii dhaqanka Soomaaliyeed iyo hidaha Soomaaliyeed oo ay iyaduna weheliyaan ilaalinta deegaankeena hodanka ah aynu ku noolnahay iyo dhirta oo ugu muhiimsan iyo waxa weeyaan waxa nolosheena ku xiran tahay oo deegaanka qoys walba oo Soomaaliyeed waagu markuu bariyo wuxuu u baahan yahay oon xoolaad subag hilib caano inta haddii aan la helin reer noolaan kara ma jiro intaba waxay ku nool yihiin waa deegaanku xoolahaas ay ku nool yihiin waa dhirta haddaynaan ilaashan oo aynaan dhiqin oo aynaan dhowrin waxaynu gaarayna lama arko dhirta sidii hadda dhalinyaradii Soomaaliyeed xil dhalaan gartay ma yaraay ma waa wax weyn baa la yiri sidii ay u garteen dhirtu mar waa cunto wax alla waxaynu cunayno dhir bay inoo ka timid mar waa cabid oo wax walba aynu cabayno sharaaba dhir baa laga sameeyay mar waa daawo marna iyadoo kiimikaal laga sameeyay wax walba kiniini iyo sharaaba daawo laga sameeyay marna waa daawo dhaqameed oo waa herbalka oo waxa weeye wax walba iyagoo dhira ayaan isku daaweynaa mar waa qurux oo waxa weeyaan wax walba oo la isku qurxiyo waa dhir wax walba oo waxa weeyaan ugu quruxda badan adduunka ama la isku hadiyeeyana sida horteena waxa yaalo kale waa ubaxa waxa weeye oo kale sidaada waa caraf oo wax walba udgoon iyo barafoon iyo catar dhirta laga sameeyaa mar waa daaqo dunyada aynu dhaqano waxay daaqdaa oo ay ku nooshahay waxa weeye waa dhirta mar waa oodo waa dugsanaa waxbaynu ku oodanaa mar waa harsanaa mar waa dugsanaa wax walba mar waa hooy oo guri baynu ka samaysanaa oo guriga aynu dugsano oo walba dhir buu ka samaysan yahay mar waa weelo sida dhaqankeennii hodanka dhiisha iyo haruubka iyo xeerada iyo wax walba dhirteena ayaa laga soo sameeyey dhirta marka inaan ilaalino waxaan marka ugu mahadcelinaynaa shirkadda hadda iyaduna inoo soo bandhigtay ganacsiga dadka ganacsatada ah ee maalkooda ku maalgeliyey si dhirteennii u badbaado oo dhirta wax ma yaqaanku jarayo oo dhuxusha ka dhigayo si looga badbaado oo dhirta loo dhaqaaleeyo inay noo keeneen gaaskaas oo lagu isticmaalayo cuntadii karinteedii iyadoo qiimuhuna uu jaban yahay lagana faa'iidaysan doono halku dhig waxay ka dhigeen dhaqaale dhirta isticmaal sahal daryeel deegaankeena aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa xarunta GECBD oo runtii munaasabadan qiimaha fara badan leh oo maanta qof walba Soomaaliya ama munaasabadan ka soo qayb galay geed inuu gurigiisa ku beero geedaha waxa isugu jira geeda miro leh sida babayga oo kale geedkan moringaha la yiraahdo waa geed adduunka uu ogaaday dhirta adduunka ugu qaalisan inuu yahay geedkan wuxuu noqdaa cunto wuxuu noqdaa cabitaan wuxuu noqdaa daawo wax walba oo qofka bini'aadamka u baahan yahay ayaa ku jira fuuqbax hadduu ilmuhu kaaga dhaco uma baahanaysid inaad faleebayaal iyo wax badan siisid iyo ORS caleentiisa kaliya haddii aad siisid waxaa hubaala geedkan wax walba waa laga helayaa adduunku geedka saa u qiimaha badan hadda waxaan aragnay iyadoo la soo dhoofiyay oo farmashiyaasheena taala oo qaarkood Canada laga keenay waa geedkii caleentiisii oo la qalajiyay iyadoo saliid laga dhigay isagoo waxa weeyaan miraa intaba geedka sidaas u qaali ah dhulkeenna wuu ku yaalaa mana aynu naqaan waxa geedkan dhulkeenna looga yaqaanaa waa geedka la yiraahdo wamaha wama dheere iyo wame labaduba waa geed inaynu haysano geedka adduunka ugu qaalisanaa oo ayna waxba ka garanayn sidoo kale waxa iyaduna halkaan saaran geedka cadaada la yiraahdo adduunka daawo walba oo la sameeyo iyaduna waxay ka kooban tahay daawo walba oo la sameeyo geedka cadaada baa lagu daraa adduunku wuxuu u aqoonsan yahay inay Suudaan kaliya ka baxdo oo laga helo inagana dhulkeenni meel walba ku taala inaynu ariga ku oodana ma ahane wax kale ay noo tadha lama arko marka inaynu deegaankeena hodanka ka faa'iideysano dhaqankan maanta la nooleeyay iyo munaasabadan la isugu yimid aynu ka faa'iideysano waxaan halkan ku xusayaa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dawladda Puntland 15 Febraayo ku socota wasaaradda arrimaha gudaha ku socota wasaaradda amniga ku socota wasaaradda cadaaladda ku socota wasaaradda deegaanka ku socota wasaaradda maaliyadda ku socota gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka ku socota taliyayaasha booliska ujeedo fulitaan sharciga xakamaynta iyo dhowrinta deegaanka kadib markii aan tixgelinay cabashooyin badan oo ka yimid guud ahaan bulshada gobolada Puntland kadib markii loo furgalay xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka dalkeenu kadib markii aan dhageysanay warbixino iyo talooyin ka yimid aqoon-yahano sahan ku sameeyay xaaladda jarista iyo gubista dhirta kadib markii aan go'aaminay in si degdeg ah looga qabto xaalufinta deegaanka waxaan soo saarnay go'aamada hoos ku qoran kow waxaa la farayaa wasaaradaha ka hor ku xusan
iyo gobolladaba inay si degdega uga hortagaan xaalufinta ba'an ee lagu hayo deegaanka jarista dhirta gaar ahaan gobollada dalka oo dhan waxaa wasaaradaha kor ku xusan laga doonayaa inay fuliyaan shuruucda Soomaaliya ee badbaadinta deegaanka oo aynu Soomaaliya la wadaagno iyo shuruucda deegaanka Puntland ee la xiriira jarista dhirta iyo mamnuucista dhoofinta dhuxusha wasaaradda deegaanka waxaa la farayaa inay si degdeg ah u dejiso siyaasad deegaan environment policy iyo istiraatiijiyad lagu dhiirigelinayo xoojinta xeer Soomaaliga ee la xiriira arrimaha deegaanka ciidamada amniga waxaa laga dalbanayaa inay tilaabo sharci ah ka qaadaan qof kasta oo lagu arko isagoo dhuxul dhoofinaya ama jaraya dhil qoyan ama se suuq geynaya 5 ugu dambeyntii waxaa bulshada reer Puntland ku dhiirigelinaynaa inay ku midoobaan badbaadinta deegaanka si jiilka soo koraya uu u helo deegaan caafimaad qaba oo uu ku noolaado kuna tanaado ugu dambeyn waxaa lagu boorinayaa booliska iyo maxkamadaha inay ka digtoonaadaan dayaca deegaanka iyo kuwa ka ganacsada intaba madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wareegtadaas ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxayna faraysaa intaas oo dhan nuxurkeedu inaynu deegaankeena ilaashano in deegaanka la ilaaliyo inay rabitaankeena ku timaado ayaa la rabaa geedka aynu ku noolnahay haddii aynu jarno macnaha nolosheenii baynu jarno waxaan rabnaa marka inaynu deegaankeena ilaashano oo aynu ku ilaashano aqli iyo garasho iyo dareen ah inaynan deegaanka la'aantiis noolaan karin nolosheenuna inay deegaanka ku xiran tahay duunyaynu dhaqanaa xoolo dhaqataynu nahay xooluhuna geedkay ku nool yihiin haddii geedkii la jaro xoolihii waxaa hubaala noolaan mayaan inana noolaan mayno sidoo kale dawladdii hore waxa ay mamnuucday oo laga mamnuucay Puntland isticmaalka caagadaha markii la ogaaday cudurro fara badan inay keenaan sida hadda la inoo sheegay ama ay inoo ku soo bandhigeen qaab masraxiyeedka dhalinyaradii inuu caagu dhibaato dhan keenay dhiishii culnayd ee waxa weeyaan fayadhowrka lahayd ee caafimaadka ahayd ee antibacteriyada lahayd inaynu iyada ku noqono ama weelka macdanka ee hadda xoolo dhaqatada qaarkood ay ku isticmaalaan inaynu iyadana u noqono aynu sidaa u isticmaalno sidoo kale bacdu waxaa hadda loo bixiyay ceeb iyo cayr waxay baabi'isay geedkii oo geedkii ay ku dhigto waa qallajinaysaa waxay dadkii ku riday cudurro fara badan oo caafimaadkoodii dadkii isticmaalay bacda cuntada kulul markii lagu shubay ama cabitaankii markii lagu shubay kiimikaaliskeedii markuu cuntadii ama cabitaankii galo inuu qofkii intaasoo cudur ay u gudbinayso waxay baabi'isay duunyadii oo neefkii cunaaba waa dhimanaya xataa waxaa la sheegay inay ugu tagtay xayawaanadii badda ku noolaa inay badda gudaheeda inta ugu tagto halkaas waxa weeyaan ama ay isku duubto ama waxa weeyaan intay ku cunaan ay ku dhimanayaan marka waa shay aan waxba reebayn yaa u baahan marka inuu ina ka ilaaliyo maciidan iyo dawlad iyo dekreeto madaxweyne baa ina ku filan waxa ina ku filan hooyo walba iyo aabbo walba iyo wiil walba iyo gabar walba iyo qof walba oo ganacsada inuu ogaado dhibaatada ay bacdu ina ku hayso markaana uu isagu iska xaaraantinimeeyo haddii uu qofku iska dayn waayo haddaynaan inagu ka gadan isagaaba intaasna iska gubi doona iskana dayn doona waxaan gabagabadii kula dardaarmayaa bulshada guud ahaaneed gobolka mudug nolosheenna inaynu inagu ka fakarno oo wax walba oo inagu aynu u baahannahay inaynu inagu samaysano xabaal nin leh baa qarax tarta baa la yidhi haddaynaan inagu amnigeenna ka shaqayn cidi inoo ka shaqayn mayso haddaynaan inagu horumarkeenna ka shaqayn cidi inoo ka shaqayn mayno haddaynaan inagu deegaankeenna ilaalin cidi inoo ilaalin mayso haddaynaan inagu dhaqankeenna difaacin oo aynaan dhaqankeenna dhowrin cidna inoo ilaalin mayso marka yaynu sugaynaa weeye cidna sugi mayno inaynu isku tashanaa la rabaa amnigeenna inaynu ilaalinno horumarkeenna inaynu ka wada shaqayno deegaankeenna inaynu ilaalinno dhaqankeena hodanka inaynu ilaalino ummad walba waxa la yiri jiritaankeedu wuxuu ku xiran yahay dhaqankeeda iyo luuqadeeda ummadii jiritaankeeda dhaqankeeda iyo luuqadeeda ka tagta jiritaankeedana waa tirtirmaya marka in dhaqanka la nooleeyo oo jiritaankeena la nooleeyo aad waxaan ugu boorinayaa bahal saxaafadu inaad ku dadaashaan saad dhaqankeena Soomaaliyeed u nooleyn lahaydeen saad u difaaci lahaydeen sidii aad isaga u dhiirigelin lahaydeen dhaqamada shisheeyana aad ula dagaalami lahaydeen fariimahaana sidii aad bulshada ugu gudbin lahaydeen inaad mar walba ku celcelisaan oo aad ku boorisaan dhamaanteen waxaan leenahay ku soo dhawaada munaasabadii maanta gabagabadeedu dhaqankeennana aynu ka faa'iideysano waxa inoo yaala maanta ilaa iyo 200 oo geed 200 oo geed qof walba inaga ina kamid inuu geed beero geed hadii la beero maxaa laga dheefayaa geedkan waxaanu sheegnay moringaha waxtarka uu leeyahay suu daawo u yahay kan waa babaayo qofku gurigiisa haduu ku beerto isaga mira ugu filan
kan waa har oo gurigiisa isagaa harsanaya geed qofkii beera inta geedka lagu intifaacayo haddii la harsado haddii la dugsado haddii miro laga goosto intaba ajar buu ka helayaa deegaankeenna aynu ilaalinno intaynu dhirteenna u jari lahayn xaabo iyo dhuxul iyo inaynu dhoofinno oo nin carab oo raba intuu faakahaystay inuu uunsi ku shito dhuxusheenni war dhuxusheenna ay dheer geedkeenna aynu daysanno aynu ku noolaanno gaaska isaga laynoo ka keenay innagoo aynu isticmaalno waxaa xaqiiqo ah haddii aad waraysataan dadka dhuxusha dhoofiya maxaa lagu sameeyaa waxay ku leeyihin carab baa loo geeyaa uunsi bay ku shitaan iyo foox bay ku shitaan waa ayaan darra markii geedkeenniina inaynu qallajinno innaguna waxa weeye inaynu markaas isagii u geyno isagiina uu ku faakahaysto innagana in la yidhaahdo xoolaheenni macluul bay u baktiyeen haddaad fiirisaan meesha xoolaha laga qalo maalintii gaar ahaan geel oo kale waxaad arkaysaa macluusha inuu dhaqaaqi waayey taa waxaa sababay geedkii uu cuni lahaa ayaa la gooyey marka waxa weeye waxaan idinkula dardaarmayaa inaynu deegaankeennana ilaashanno dalkeennana ilaashanno wixii wax u dhimayana dhammaanteen aynu ciidan u noqonno dhammaanteen aynu dawlad u noqonno dhammaanteen aynu wasiirro u noqonno dhammaanteen aynu saraakiil u noqonno dhammaanteen aynu siyaasiyiin u noqonno innagoo isku duuban aynu danteenna wada ilaashanno danteennu maxay ku jidhaa marka inaynu ilaashanno inaynu deegaankeenna ilaalinno inaynu dhaqankeenna ilaalinno inaynu waxawey amnigeenna ilaalinno inaynu horumarkeenna ka shaqayno ayay intaasi ku xihan tahay waa mahadsantihiin waqtigu waa kululaaday aad iyo aad baa u mahadsantihiin munaasabadaha najiis b c b d annagoo uga mahad celinayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay munaasabadan iyo dhaqankan iyo tababarkan aad maanta xasuusiseen ummadda oo aadna laydinkaga mahad celiyey inay noqdaan kuwa joogteeya inaad noqotaan kuwa joogteeya oo la joogteeyo dhaqankeenna hodanka ah haddana waxaynu ku wareegaynaa alaabteenna hidaha iyo dhaqanka iyo sida ay tahay شرعي العالم والضدك قوح وشيك شني بان سمي ملب يلي ما تشقينينا وحيتي شتات تمد الارتيام كشو بيجري روح البابا لغا الشداي والضدك قوح وشيك سمي ملب إلي ما تشقينينا وحيتي شدات تمد الارتيام كشو بيجري روح البابا لغا الشداي بلدك قوح وشيك geedkaana waa geedkeennii la oran jiray cadaadda markii adduunka la daraaseeyey oo dhallinyaro reer gaalkacyood oo Finland ka soo baratay cilmiga dhirta waxay sheegeen geedaha adduunka ugu qaalisan inuu yahay wax walba oo adduunka daawo laga sameeyaa inay geedka cadaadda laga maarmaan tahay inay ku jidho inaan ogaano qof walba gurigiisa uu ku beerto xabagtiisa la cuno caleentiisa la cuno laga farayo وحشيغا ومادو وشرح dadweyna si ay sharafta qalanimo uga wada shaqeeyaan sharcigana u dhowraan dhirtayaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer dhulka wou shacniya qurux waana shay la'aantii noloshu waa shaqaynine